dugsiga Jarmalka waa dugsi ka dhisan gobolka Togdheer kaasoo lagu barto qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta sida cunto karinta, electricity-ga, biyo gelinta, nijaarnimada. Isla mar ahaantaana sanad kasta ka soo baxaan boqolaal arday ah. Iskuulkani oo dib habeen lagu sameeyay 2015 ayaa waqti xaadirkan ah mid shaqeeya xilli uu maanta telefishinka caalamiga GTN uu qalab qaatay sidii wax uga ogaan lahaa xaaladda uu ku sugan yahay iskuulka Jarmalka ayaa waxa uu la kulmay habo socod iyo hanaan wanaagsan isla markaana shaqooyinkiisa maalinimo ka socdaan. Ugu horreynba waxaan wax ka weydiinay ardayda wax ka barata dugsigani waxaana nooga warbixiyeen xaaladda iyo tacliinta taala dugsigani waxaana kamid ah hadaladoodii meesha soo doontay waxa weeyaan inaan xirfad ka soo faa'iido iyo aqoon dheeraad oo practical ahaan aan u qaban karo ardaydu badanaa waxay bartaan theory laakiin halka theory laguma barto theory kasta aan barano sidii macnihii IT-ga oo kale waxa lagu siiyaa practical marka waxaan ka faa'iidnaa si cunto karinta iyo sweetiska iyo qaab kale oo decoration la yiraahdo oo si guryaha loo goglo ama hoteelada kale si casri ah oo casri loo goglo saasan macni ka barana meeshan waxa kale aan ka baranaa sweetiska cuntooyinka kuwa hoteelada waaweyn lagu sameeyo cuntooyinka hadan tusaalayaal ka bixiyo sida biisaha wax la yiraahdo keelo waxyaabo kale oo shuka la yiraahdo waxyaabo badan oo casri ah aan anagu aqoonin ama wada markaan soo iibsanayno aan magacooda qaar maqli jirnay ayaan halku baranay marka ma sha Allah waxyaabo fiican oo aqoon kororsi fiican si aan gobolka iyo macni geyiga wax ugu soo kordhino waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaari doono insha Allah taala waxaan ka codsanaynaa horta in kastoo lagu yiri qaybtan macallimiinteeda aad looma helo macallimiinta yale inay noo soo kordhiyaan oo macnihii waxaan xirfado u leeg aan ma garanaysaa xirfadahan ku takhasusay ay noo soo kordhiyaan si macallimiin ka dhisan xagga language-ka oo kale waayo waxa badan aan noo dhiga qaar aan language-ka wax ugu dhaamin maadaama nahay arday jaamacadeed ama qaar ka qalin jibin ama jaamacada dhigtaanba markaas waxaan ka rajaynaynaa inay qalabkana noo soo kordhiyaan aan tababar ku qaadanayno iyo macallimiinta sidoo kale caqabadaha waxa ugu badan caqabadahan ka kala kulano macallimiin la waayo iyo meelahoodii gobolka iskuulkan uu kaga yaalo meel kaliya waana ka nimaadna anigoo kale xaafadda October-ka ugu dambaysa marka traafil inay traafil noo sameeyaan sida basas oo kale ardayda guryahooda gaarsiiya dhanka kale maraan wax ka weydiinay macallimiinta ama barayaasha wax ka dhigta dugsigan ayaa waxa kamid ah hadaladoodii waxyaabaha adduunka horumarka ugu gaadhay maanta dal kastaba intuu technical uu leeyahay ayuu horumar gaadhaa technicalku waa waxyaabaha u sahla dal kasta inuu ku gaadho horumar la taaban karo sidoo kale ardaygii waqtiga badan uu kaga lumi lahaa waqti kooban baanu siinaa short course kaas uu ku dhaamaa intii sanadood ee ka soo lumi lahayd laga yaabo maanta xagga academic data eegto ardaygii wuxuu ka soo bilaabay koowaad ka soo bilaabay sideedaad ka soo baxay 8 sano anta fofor ka soo baxay 12 sano anta jaamacad ka soo baxay 16 sano 16 ka soo baxay ilaa hadda shaqo ma hayo marka ardayga waxyaabaha kalifayana wali shaqo haynin waxyaabaha kalifay ay ka mid tahay sida anagu waxaan doosaale ardaygii xirfado muddo kooban uu shaqo ku heli karo isla markaana bulshadiisa iyo wadankaba horumar ku gaarsiin karo taasna waxyaabaha faa'iidooyinka aan dalka u soo kordhinay technical-kuna uu leeyahay dabcan sidoo inta markuu faa'iideysto waxaanu deesinaa qalab aanu bixino sidoo kale waxaan geynaa goobo shaqo aan geynaa aad iyo aad waxaan martan iyadoo go'aan naqaya xukuumadda Soomaaliland oo iyaduna qayb muhiim ah ka qaadatay qaybta technical-ka institute-ka ugu dambeyntii maamulka iskuulka ayaa naga warbixiyay xaaladda iskuulka ee samar ahaantaana u duceeyay ardayda wax ka barata dugsigani waxaana kamid ah hadaladiisii ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horeysa in uu iskuul dad midho bixiya oo uwad صالح أي هالصوب حنون ونقص اللي كوهر ونقص. وعبد الرحمن عيسى تلفزيون عالمي GTN مقالة برعو.